ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag tababar soconayay muddo 2 maalmood ugu soo xidhay saxafiyiinta ka howlgala gobolada Sanaag iyo Saraar waxaana kulankaasi oo lagu soo gabagabay hotel Cadam iyo magaalada Ceerigaabo ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Sanaag oo ugu horeeyo barasab ku xigeenka gobolka Sanaag ahna barasab ku simaha gobolkaasi Ismaaciil Cabdi Xasan isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Sanaag Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf gudoomiyaha ururka Solja ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Xuseen Darwiish iyo madaxa mashaariicda ee ururkaasi Liibaan Cabdi Shaadiro waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Solja ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Xuseen Darwiish iyo wakiilka madaxa mashaariicda ee ururkaasi Liibaan Cabdi iyo mid kamida macallimiintii tababarkaasi bixinaysay oo halkaas ka soo jeediyay waxqabadyadii ballaana ee ururku ka geystay saxafiyiinta ka howlgala gabi ahaanba dalka xiritaanka tababarka 2 maalmood inoo socday mas'uuliyiinta kale ayana meesha fadhida ururka Solja xubnaha ka socda ee tababarka inoo keenay dhammaantiin waxaan leenahay waan ku mahadsantihiin hawshaad noo qabateen annaguna insha Allah waan ka faa'iideysanay kulli wixii araah iyo fikir aqbalna waan isweydiisanay inta haddaan inta ku daayo halkan waxa ku soo gabagaboobay tababar soconayay 2 casho oo ku saabsan badqabka suxufiga iyo is ilaalinta waxa ka soo qayb galay 25 xubnood oo ka socda gobolada Sool iyo Sanaag oo isugu yimi kulli waxaan filayaa waxaan anigu iftiiminayay in xubnaha meesha ka soo galay maadaama aynu gobolkii joogno aad baanu Solja uga mahad celinaa tababarka waxaan kaloo jecelahay kulli inaan cadeeyo intii ka horeysay xuute Solja iyo Sanaag ismay oqon laakiin intii xuute Solja qabsaday ayay Sanaag Solja maqashay wax qabadku haba yaraado waxa ugu horeeya ee qofka sumcadiisa dila institutionku uu shaqeeyayna dila waseen markii ka hadlanay waa TV-good ka soo baxday oo la yiraahdo waa kii naga baqtiya adiga institutionka waxa u badan tahay maanta saxaafadeen waliba qolooyinka warbaahinta ka shaqeeya mareegta online-ka in maanta la yiraahdo marka website ba waxa sheegay marka tiraahdo waa kuwii website-ka ahaa warkooda ma sax ma ay naga daaya oo cid qaadan weydo warkaaga taana waxa ugu wacan waa inaga gudaheena inaga qowlaysta miidhan noqonay inaga noqonay dad doon raaca iyo sidii aynu discuss gareynay ama aynu u wadaagnay duruusteennii ku saabsanaa safety-ga aad baan ugu faraxsanahay waxa kaloo aad ii farxad geliyay saxafiyiinta gobolka joogta inkastoo kuwa aynaba saxafiyiinta magaalada gobolka Saraar ee aynaba inaga habsaameen oo duruuf ay ku timid laakiin inteennii kala joogtay ka qayb gashay shalay maantuba waxaan qirayaa inaad tiin saxafiyiin soo jeeda ونبن آدو سوتشيدا وبراركسن دودو ديبنية كالفران أقوم في عنا لا يرنتي ويان مركا أتى بد ما سنتين وحنا نديكو ديري قلنيا أقوم تما هون ميدانو كسوق نعيد كلام وحنا يقول دنكو ذكاء الله قار كم إذا وحنا يقول دنكو ذكاء الله قار كم إذا صحفيين تتوبر كاسي لسيني أو مهنقي أورك صحفيين تسولجا أنا مهل علنيا معلمين توبر كنا فرتي وأنسلا هاي wax badan ayaan inshallah ka faa'iidnay wax mar labaad mahad celinaya ururka Solja oo tababarkan wala sugan tababarkeenan nooguna yimaanay maanta la soo xiraan waxaan mahad celinayaa macallinkii mudada 2 cisho tababarka noo bixinayay markaan inta ka imaado Solja inaan maxay toolay la hadallo ayaan in badan aan aragnay ayaan cil qabnay oo way nagu yartahay gobolka waxaan dhaxnaa badan waxaan kala Solja ka codsanaynaa aan markaas Solja u sheegaynaa in gobolada ay u sinaato Solja sababta ay ugu sinaanaysaa anta walaal waxa weeyaan Hargeysa hadii hal suxufi laga xidho waxa laga yaabaa Solja inay soo wada fadhiisato ama aan gudoomiyaheeda aragno annaga hadii hal suxufi la ka xidho ama wax gaadhaan waxa laga yaabaa inaan cid arag ama loo qayliyo gabagabadina waxaa dalka soo afmeeray isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolkaasi Sanaag Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf iyo waliba barasab ku xigeenka gobolkaasi Sanaag ahna ku simaha barasabka Ismaaciil Cabdi Xasan waxaana kamid ah hadaladoodii runtii aad baan ugu faraxsanahay in kulamada noocan oo kale iyo duruusta noocan oo kale ay Solja gobolka soo gaarsiiso Soljana waxaan ka codsanaynaa gobolka Sanaag waa gobol ka ugu ballaaran gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in xagga maadaama xilligii hore wax loo oran jiray gobolka Go'doon buu yahay laga caajis jiray laakiin maanta imka laami baan yeelanay
in sidaa gobolku u weyn yahay xuquuqdiisuna ay u weynaato dhinac kastaba. waxaan kale oo aan jecelahay duruustan aad ku qaadateen labada casho wuxuu ahaa dee safetyga iyo suxufiga badbaadadiisa. idinka taa waa fahanteen, si fiican baa uga dheregteen. waxaa kaloo idinkana idinkula dardaarmayaa inaa idinkuna ku dabaqdaan aqoontiinan badbaadinta shacbiga aad deegaanka iyo deegaanada aad joogtaan. u qabatay shirkan iyo saxaafiyadda ka soo qayb gashay ee ka timi gobolka Sanaag iyo gobolka Sool degmooyinkeeda kala duwan. dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi aad baan ugu mahadcelinayaa tababarkan aa u qabateen saxaafadda gobolka Sanaag iyo Sool. Sooja ay u qabatay oo labada maalmooda aad bay ugu mahadsan yihiin. run ahaantii wax loo baahnaa oo aanu baahi u qabnay weeye, annagoo ah gobol fog oo bariga labadii gobol ee bariga weeye oo aada u fogaa. waxaan u baahanaa inay intaa ka sii bataan oo aad saxaafadda u qabataan tababaro fara badan, iyaga oo ka imanaya dhul badan oo ballaaran oo kala fog weliba ka imanaya. aad isugu keenteen degmada Ceergaabo oo kale waa wax fiican weeye. waan idinka sugaynaa kuwo kale inaad noo qabataan run ahaantii, iyadoo aanu baahi weyn u qabno. maantana Sooja ay noo soo jeesatay, aad baan idinku mahadcelinayaa. saxaafadda ka soo qayb gashay ee gobolka Sanaag iyo gobolka Sool ka tirsan ee xilka soo saaray ee waxbarashada diyaarka u ah ee u yimi, run ahaantii 100% aad baan idin hambalyeynaya. waa waxaynu u baahannahay weeye inaynu wax baranno oo aynu wax qabsanno oo aynu reer Sanaag baynu nahay ama reer Soolba labada gobol ee bariga baynu nahay. inaynu gobollada dee aynu wax la qaybsanno oo wax la wadaagno oo aynu wax baranno waa mid muhiima. Sooja waxaan jeclahay inay waxbarashada soo gaarsiiso, inay tababarada soo gaarsiiso. iyaguna diyaar bay u yihiin, baahiduna way muuqataa. waa kaasaa u fadhiya xabad kaga maqna.